السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. AU African Union midowga Afrika وحدة إفريقيا. haddii aad ka mid tahay dadka idaacadaha dhageysta ama aad ka mid tahay dadka daabada TV-da wararka soo gudbiya in badan waad maqashay waraahiyad iyo kelmadaha aan wax yar ka hor soo sheegay. AU oo loo soo gaabiyay African Union af Soomaaligiisuna yahay midowga Afrika, af Carbeedkiisuna yahay wixdatu Afriqiya. laakiin waxaa jirta su'aal meesha taagan oo ah muxuu yahay ururka midowga Afrika, muxuu qabtaa, goormeesa la aasaasay, yaana ku midoobay ururkan. insha Allah muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa macluumaad baaxan oo quseeya kuna saabsiisan ururka midowga Afrika iyo ka jawaabida su'aalihii aan hadda isweydiinaynay. halkan waa kanaalka Garwaaqsi ama Garwaaqsi Channel oo aad ku barnaadeen ka hadlida xaqiiqada taagan iyo gudbinta macluumaad kala duwan. waxaan idin soo gudbinaa walaalkeena Cumar Maxamed. ku soo dhawaada mowduucan midowga Afrika, kuna soo dhawaada kanaalka Garwaaqsi. ina keena in wada bilaabanay mowduuceena. inta aanan mowduuca baaxadiisu gelin waxaan doonayaa inaan baraarujiyo hal arin. haddii uu ku qanciyay kanaalka Garwaaqsi oo aad is leedahay noloshaada wax un buu ka bedeli, wax un waad ka faa'iideysaa kanaalkan, ku soo biir kanaalka subscribe saaro oo ka mid noqo mid ka mid ah bahda iyo aqyaarta ku xiran kanaalka Garwaaqsi. African Union ama midowga Afrika waa urur caalami ah oo ay ku midoobeen 54 dowladood oo ka tirsan qaaradda Afrika. markaan ku leeyahay urur caalami ah waxaan ula jeedaa koox caalami ah oo caalamku idin laga wada yaqaan, lagana wada og yahay, ayna ku midoobeen 54 dowladood oo ka tirsan qaaradda Afrika. African Union ama midowga Afrika waxaa la aasaasay 9 bisha Luulyo 2002 waxaana lagu aasaasay magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika. magaaladan magaceedu yahay Durban waa magaalada saddexaad ee ugu dadka badan dalka Koonfur Afrika. masaaxada magaaladani waxay gaaraysaa 225.19 kilomitir square. magaaladan Durban waxaa ku yaala markas ama xarun weyn oo ka shaqeysa dacwada Islaamka. waxaa kaloo ku yaal magaaladan macahad magaciisu yahay Macahad Salaam oo lagu soo tababaro dadka ducaada ah oo ka shaqeeya dacwada Islaamka. labada markas waxaa aasaasay aabaha doodaha qof looga dambeeyay habka loo doodo Sheikh Ahmed Diidaad oo ka soo jeeda dalka Hindiya. ururka midowga Afrika sanad waliba waxaa lagu martigeliyaa dal ka mid ah dalalka xidhmaha ka ah kana tirsan ururka midowga Afrika. Afrika waxaa xilliga ka jiray ilaa iyo haddana ka jira amni la'aan ama amni xumo, xasilooni la'aan iyo madax banaani la'aan oo dal waliba u madax banaan yahay xuduudihiisa. kadib markii ay reer Afrika arkeen dhibaatadan ka jirta qaaradoodu waxay go'aan ku gaareen inay ku midoobaan hal urur ayna u bixiyaan AU oo loo soo gaabiyay African Union. af Soomaaligiisu yahay midowga Afrika, af Carbeedkiisuna yahay wixdatu Afriqiya. ujeedooyinka loo unkay ama loo aasaasay midowga Afrika waa in la gaaro midnimo weyn, isku xirnaan iyo wada shaqeyn dhex marta dalalka qaaradda Afrika. ujeedooyinka ururka loo aasaasay waxaa kaloo ka mid ah inay difaacaan madax banaanida xuduudaha dalalkooda. African Union ama midowga Afrika wuxuu ku fashilmay waxyaabo fara badan. wuxuu ku fashilmay inuu wax ka qabto dhibaatooyinkii ka dhacay dalka Congo ee sanadka 1964. dalalka Afrika ayaa laba garab kala istaagay oo hal af ama hal cod noqon waayay, iyagoo ujeedooyinka ururka u aasaaseen ay ka mid tahay inay gaaraan midnimo weyn oo ka dhaxaysa dalalka Afrika. midowga Afrika wuxuu ku fashilmay inuu farageliyo dagaalkii sokeeye ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. midowga Afrika wuxuu ku fashilmay inuu wax ka qabto xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda ee u dhaxeeyay Hutu iyo Tutsiga. ururka midowga Afrika waxa uu si toos ah ugu fashilmay inuu qaaradda Afrika gaarsiiyo midnimo guud iyo nabad, inagoo aan meel kala aadin, dal kalena dhibaatadiisa sheegin. waan u jeednaa oo dahnagama saarna dhibaatadii amni xumada ka jirta dalkeena Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka qaaradda Afrika. haddii inaan Soomaali amni iyo nabad ka jirin waxay ka micno tahay in midowga Afrika uu ku fashilmay go'aanadii uu qaatay iyo ujeedooyinkii uu ururka u aasaasay. ujeedooyinkoodu waxaa ka mid ah saan hor u sheegnay in qaaradda Afrika la gaarsiiyo midnimo guud iyo amni. midowga Afrika waxaa soo wajahay ama soo qaabilay caqabado fara badan oo sababay inuu ururka ku fashilmo ujeedooyinkii uu lahaa iyo go'aanadii uu dejiyay.
caqabadaha ururka soo wajahaya waxaa ka mid ah dalalka qaaradda Afrika oo kala haysta ideology kala duwan yacni kala fikir duwan oo midba ama dalba dhinac u fikirayo una arkayo dhinacaas inay saxan tahay haddii aynu dhahno dad hebel aynu midayno laakiin dadka ay kala fikir duwan yihiin ay kala dhaqan duwan yihiin way adag tahay inaan midayno midayntoodu waa in loo dheeraado dalalka Afrika dal waliba ideology ama fikir ayuu leeyahay midba dhaqan ayuu leeyahay xitaa qaarkoodu waa muslimiin qaarkoodu kalena waa gaal xitaa dhanka iyo diinta way ku kala duwan yihiin dad sida u kala duwan way adag tahay in la mideeyo sababtan waa mid fashishay oo fulin weyday ujeedooyinkii African Union ama midowga Afrika caqabadaha soo wajahaya midowga Afrika waxaa ka mid ah faragelin buuxda oo lagu hayo arrimaha qaaradda Afrika taas oo ka imaanaysa dibadda qaaradda Afrika gaar ahaan dawladaha awoodda waaweyn faragelin ka imaanaysa qaaradaha kale ee caalamka inta badan faragelintu waxay ka imaanaysaa labada qaaradoo kala ah Mareykan iyo Yurub muddo ka hor waxaan maqlaayay Mareykan ayaa wuxuu yiri Soomaali aniga gacanta la ii soo geliyo aniga hala igu salimo aniga ayaa toosinayo cajiib waan yaabay warkan faragelin xitaa waa dhaafay waa war cad oo banaanka yaalo caqabadaha soo wajahaya ururka midowga Afrika waxaa ka mid ah ilaa iyo hadeerna taagan muran xuduudeedka ka dhaxeeya qaar ka mid ah dalalka Afrika dad isku haysta xuduud oo uu dagaal ka dhaxeeyo ayaan midnimo gaarsiinaya waa mid aan macquul ahayn dalalka xuduudaha isku haysta waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Kenya oo isku haysta NFD iyo badda alxamdulillah badda Ilaahay ayaa nooga soo qaaday ku dhawaad muddo 2 isbuuc ka hor Soomaaliya iyo Ethiopia oo isku haysta gobolka Soomaali galbeed Ethiopia iyo Eritrea Morocco iyo Algeria Suudaan iyo Liibiya dawlado kale fara badan oo ka tirsan qaaradda Afrika insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax un ka fahantay macluumaadka midowga Afrika African Union wuxdatu Afriqiya magacaygu waa Umar Maxamed halka aad iga daabanaysaan oo muuqaalada idinku soo gudbiyo waa kanaalka Garwaaqsi ama Garwaaqsi channel haddii aad isleedahay kanaalkan wax un baad ka faa'iidi noloshaadan wax un buu ka bedeli ku soo biir oo subscribe saar kana faa'iideysa muuqaalada aan soo geliyo kanaalka Garwaaqsi wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh